sahal maaha tacliintu subaxii alla keenaba cilmi baas uu siyaadayo saameeyo koonke safarkii u dambeeyayna sahal software ayaan idiin sidaayay bushay hamoogaan marulmaanka ma ku haysay samayso mareeg ama website dunyadu ay xogaha ka helaan ma u baahan tahay helidda casharo muuqaal tayo sare leh ka faa'iidaysiga casharo PDF oo tiknoolajiyadu ku dheehan tahay sahal software hosting advertisement software development design web waa xarun ku xeeldheer samaynta websaytada casriga ah iyo suurtagelinta barashada casharada kombiyuutarka noocyadiisa kala duwan hirgelinta barnaamijyada shirkaduhu ku shaqeeyaan ee loo yaqaano database program sahal software ugu kaalay tacliinta iyo sare leh iyo casharo muhiim ku ah sahal software waxa uu ku yaalaa magaalada laascaanada xarunta gobolka Sool hamogaanin sahal software hosting advertisement and development software database and web warahmatullahi wabarakatuh wa markale anigu aan Ali Khalid Maxamed Maxamuud iyo dhamaan tiimkii idin Assalamu alaykum iyo sidoo kale kooraskii loogu magacaabay si programming language 2021 hadaba insha Allah casharkeena waxaynu ku eegi doonaa sidee ayaa all on numbers hal mar loo daabici karaa number tusaale ahaan dhabanaad gelisay inta muxuu ahaayay kiisiga ku dhex jira ayaa rabtaa inaad ogaato marka ugu horeysa waxa la yiri plus plus soo furo dabana file tab tag dabana new project ka soo tag dabana choose console application dalba baa la yiri kadibna waxa la ugu dambeyn waxaad qortaa koorkan qorbaa la yiri hadaba saan u sameeyno marka ugu horeysa waa inaan tagnaa dhifkeeni ugu horeey waxa tagaysaa baa la file tab dabana file tab marka tagto waxaad ka sii tagaysaa baa la new dabana new markaad ka sii tagtid waxaad ka sii tagaysaa marka lagu magacaabo project waxaad ka sii tagaysaa marka lagu magacaabo project kadibna waxaad sii dalbanaysaa console application kadibna halkan ayaa waxaad ka dalbanaysaa c dabana waxaad oranaysaa halkan ayaa waxaad oranaysaa tusaale ahaan keeni labaad baad leedahay waxaad leedahay keeni labaad baad leedahay kadibna waxaad sameynaysaa waxa loo yaqaano okay ayaad oranaysaa dabana waxaad oranaysaa yes dabana waxaad leedahay keeni labaad dabana waxaad leedahay waxa loo yaqaano save dabana inta markaad sameyso waxaad oranaysaa save dabana inta markaad sameyso ayaa waxaad sameynaysaa halkan ayaad oranaysaa inta aan iska qaadno dabana halkan waxa lagu qori jiray arday halkan waxa lagu qori jiray dabcan halkan waxa lagu qori jiray inti main ayaa halkan lagu qori jiray waxa lagu qori jiray maxay inti main ayaa halkan lagu qori jiray dabana furana waxa lagu magacaabo circle bracketkii curly bracketkii sidoo kale aan furano dabana aan raahno inti waxaad noo sameysaa I iyo sidoo kale variable kale oo lagu magacaabo maxay n ayaa iyadana ma garanaysaa sidoo kale iyadana noo sameeyaa la yiri kadib inta marka sameeyna waxaan oranayna halkan ayaa imanayna dabana waxaan leenahay printf waxa daabacdaa baan leenahay printf waxa daabacdaa maxay waxaad tiraahdaa qofka waxaad ku tiraahdaa enter a number waxaad gelisaa numberka doonaysid ee yaani ma garanaysaa lagu ogaado inta bahalkii variable ee ku jirta numberka doonaysid in lagu ogaado geli baan leenahay kadib halkan ayaa imanayna dabana waxaan ugu dambeysinaynaa semicolon dabana waxaan oranayna scan f waxaan leenahay hadaba waa inuu qofku wax geliyaa Soomaaliya la qofku wuxuu ku wax geliye waa inuu qofka hadaba wax geliyaa waxaan leenahay waxa uu gelinayaa waa inuu noqdaa percentage decimal waa inuu noqdaa number decimal waa inuu noqdaa kadib waxaan sameeynaa waxa lagu magacaabo inta markaan sameeyno waxaan leenahay waxaad la daabacaysaa ninka lagu magacaabo isaguna m baa la daabacaysaa waxaad la daabacaysaa ninka lagu magacaabo maxay n ayaa la daabacaysaa oo n waxa gelaya numberkii decimalka ayaa gelaya inta markaan sameeyno halka ayaa imanayna waxaan leenahay 4 dabadna 4 markaan waxaan sameeynaa waxa loo yaqaano circle bracketkina ayaa sameeynaa dabadna waxaan leenahay I waxay la mid tahay waan leenahay 0 I waxay la mid tahay waan leenahay 0 dabadna semicolon ba hadana leenahay dabadna I waxaan leenahay waxay ka yar tahay ama sa ay la eg tahay ba m bay la eg tahay waan leenahay dabadna waxaan leenahay semicolon dabadna waxaan leenahay I plus waxaan leenahay I plus dabadna waxaan leenahay semicolon inta marka sameeyno waxaan leenahay hadaba inta baa oranayna sidaas oo kale waxaan sameeynaa waxa loo yaqaan curly bracket kale ayaan furan doonaa dabadna waxaan leenahay if aan leenahay dabadna if markaan sameeyno waxaan leenahay presentable I waxa ku jira I baan leenahay presentable I waxa ku jira baan leenahay I waxaan leenahay marka loo qaybiyo labo hadii ay la mid noqoto baan leenahay 1 inta markaad sameyso waxaan leenahay halkan ayaa imanayna dabadna waxaan leenahay printf waxa daabacda waxaan leenahay printf aan leenahay waxa daabacda marka halka xaajadu marayso waxa daabacda baan leenahay presentable d waxa daabacda baan leenahay maxay presentable d ayaan daabacnaa adigoo ku daabacaya maxay new line cusub adigoo ku daabacaya waxaad ku daabacaysaa baan leenahay maxay new line cusub baad ku daabacaysaa sidoo kalena waxaad la daabacaysaa ninka lagu magacaabo I ayaa la daabacaysaa waxaad la daabacaysaa I ayaa la daabacaysaa dabadna waxaan ugu dambeysinaynaa semicolon-kii dabadna inta markaan sameeyno
waxaan leenahay halkan ayaa nimanayna inta markaan sameeyno waxaan leenahay hadana ls baan leenahay isaga laftarkiisa ayaa waxaan ka guda furaynaa ls markaan ka guda furno waxaan leenahay halka ayaa imanayna curly bracket kale ayaynu furaynaa dabeedna curly bracket kale markaynu furano halka ayaynu imanayna dabeedna waxaan leenahay printf halka ayaa imanayna dabeedna waxaan leenahay maxay printf waxa daabacdaa baan leenahay waxaan leenahay printf waxa daabacdaa baan leenahay waxaan furaynaa circle bracketkii dabeedna waxaan leenahay wax kalaba gelin meeyne halka markay xaajadu marayso baan leenahay waxaad noo daabacdaa new line halka waxaan gelinaa waxa loo yaqaano double quotation ayaan gelinayna halena halka markaa marayso double quotation geli dabeedna waxaad noogu daabacdaa baan leenahay maxay new line kadib inta markaa sameeyno waxaan ugu dambaysiinaa wax lagu magacaabo semicolon hadaba si aynu bal u ogaano waxaynu maanta oo sameeynay bal marka ugu horeysa aynu ran gareyno marka la ran gareynayo dabcan saddexdeen un baa lagu dhufay jiray midun dabeedna compare ran aan dhahno dabeedna waxaan leenahay ha no save gare dabeedna waxaan leenahay yes dabeedna halkan ayuuna qabsaday dabcan inay adiga wax ka hor yimaadaan waa muhiim sababta uu talo halkan inoo qabsaday maxay tahay bal waan eegi doonaa hadii ilaahay idmo ee abuugana dib ugu laaban dabcan halkan wuxuu inagu haysto hadda anu waan garanaya adigu inaad garatid ayaa laga baahan yahay dabcan wuxuu inagu haystaa waxa weeye waa semicolonka hadaba waxaan sameeynaa hadda aan tijaabino dabcan wada rataan hadda waxa la leeyahay number gali numberka aad rabtid inuu ugu ogaado inta order ay ku dhex jirta tusaale ahaan aan galiyo 40 oo kale aan galiyo kadibna aan inta dhaho dabcan wada rataan numberkan inta order ee ku dhex jirta tirada ka horeysa inta order ay tahay ayaa la inoo soo daabacay faanfilayo casharkeena dabcan waynu ka boganay intaanu casharkan oo kale ku kulmi doono waxaan dhamaanteed ku dhaafayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayaan idinku dhaafayaa dhamaantiin sidaas iyo nabadgelyo.